soo dhawaada mar kale daawadayaal haddaba maxamed maxamuud cade oo soo akhriyay macluumaadka arrimahan laga qoray ayaa barnaamijka ila falanqaynaya. maxamed, maxay warbixintu ku bilaabanaysaa? waxaa cinwaan laga dhigay Israa'iil ayaa caqliga samayska ama AI artificial intelligence waxay u isticmaalaysaa aalad dagaal markii ay ka qayb galaysay dagaalka Gaza. militariga Israa'iil ayaa isku halaynaya caqliga samayska macluumaad urursi iyo isagoo adeegsanaya kombiyuutarro inuu dadka ku dilo xasuuqna ka geystay marinka Gaza. taana waxay muujinaysaa sida teknolojiyada casriga ah ay uga qayb qaadatay halkii la rabay inay bini aadamku wax u tarto in loo bedelo aalad lagu dagaalamo oo xasuuq lagu geysto iyo dabagal aad u ballaaran oo cid walba oo Gaza socota la daba socdo. iyadoo Israa'iil ay xasuuq ka geysatay marinka Gaza ayaa haddana waxaa muuqata in sida hadalka loo dhigayo lagu jiro maalintii kumaad in Israa'iil ay aad isugu haleynayso caqliga samayska iyo macluumaad urursi. waxaana muuqata in militarigeeda uu maareeyey in howlgallada u adeegsado caqliga samayska halkii uu ku ballaariyey weeraradiisa wadamada Lubnaan, Yemen, Syria, Iran iyo Qatar. waa gartay, marka sidee ayay sirdoonka macmalka ah oo ama AI waxa loo yaqaan ugu noqday hub lagu fuliyo dagaalka Gaza? teknolojiyada sida loo isticmaalayo waxa ay ahayd ayadoo shirkadaha teknolojiyada macluumaadka ay dadka ka urursadaan la adeegsanayo oo macluumaadkaas inta la faguro oo ay ka mid tahay aqoonsiga wejiga qofka taleefankiisa ama kombiyuutarkiisa loogu dabagalo taas oo dhalisay dhaleecayn aad u weyn doorka caqliga samayska AI ay ka qaadatay howlgallada lagu beegsanayo dadka rayidka iyo in dadka rayidka wax lagu yeelo. dagaalada caadiga ah bartilmaameedyada waxaa lagu ogaadaa oo laisku hadleeyaa macluumaad ay ururada ama hay-adaha militarigu ay dhulka kasoo ururiyeen. hase ahaatee howlahaasi inta badan waxay ahayd iyaga oo ku fulinayay macluumaad ay dad u soo gudbiyeen. laakiin hadda marka la fiiriyo marinka Gaza wixii ka dhacay agaarkeeda, howlgallada ayaa hadda waxay noqdeen kuwo farsamo ah oo goobta dagaalka macluumaadka taleefanada laga soo ururiyey iyo taleefanada khadka ah in xog inta laga urursado taleefankaaga lagugu soo dabagalo loona bedelo in loo wareejiyo militariga si ay go'aan u qaataan oo qofkii taleefankaas wata gurigiisa lagu weeraro. waa gartay, marka adeegsiga nidaamkan sidee baa u shaqeeyaa? maraykanka ayaa waxa uu taageerayey iskaashi xarun iskaashi oo rayidka iyo militariga ay ka wada shaqaynayeen. doorkeedana uu ahaa in macluumaad la ururiyo lagu xiriirinayo howlgallada Israa'iil oo xagga xogta laga soo ururiyo shirkadaha waaweyn ee taleefanada iyo shirkadaha waaweyn ee teknolojiyada, kadibna sawirada iyo macluumaadka in loo gudbiyo dayax-gacmeedka, kadibna diyaaradaha daroniska ah fariin la siiyo isgaarsiinta qofka haysta taleefanadaasi ama mobile phone-ka cid allaaliyo ciddii la xiriiro macluumaadkeeda la ururiyo, kadibna caqliga samayska uu kala hufo oo kala haadiyo una diro macluumaadkaasi militariga dhulka ka howlgalaya. hay-adaha ay ka mid yihiin Palantir, Maven ayaa door weyn ka qaadatay in teknolojiyadaas la isticmaalo oo la isku daro macluumaadkii ciidamada sirta iyo kuwii rayidka ahaa loona bedelo in lagu bartilmaameedsado si toos ah dadka taleefanada wata. shirkad kale oo iyadana data miner la yiraahdo oo ay taageerto ciidamada sirta ee CIA-da ayaa iyadana macluumaad dhab ah soo gudbinaysa daqiiqad walba. qofka taleefanka wata meesha uu marayo ayaa la ogyahay, baraha bulshada ayaa lagala socdaa. macluumaadkaas la soo ururiyey ayaa dhinacyo badan ka imaanaya, kadibna ilahaasi ayaa loo bedelayaa macluumaad markaas taagan iyo meesha uu qofkaasi ku sugan yahay. lafagurkaas ayaa lagu taageeraya howlgallada ciidamada Israa'iil. isla markaas ayaa nidaamkii iyo kaabayaashii ciidanka Israa'iil ay lahaayeen oo ay shirkadahaasi u gudbiyeen ayaa loo bedelayaa awood military oo gurigaaga adoo jooga lagu beegsanaya. hase ahaatee macluumaadkani sidiisaba
in uu yeesho qiimo waxaa u yeelaya macluumaadka ay shirkadaha privateka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay soo ururiyaan una bedelaan bartilmaameedyo la toogan karo. Markaas ayaa waxa ay keentay doorkaasi inuu yahay mid ay ka timaado ceebo badan in caqligii samayska oo loogu talagalay adeeg rayid ah ama taleefanka qofku markuu qaato in uu u isticmaalo sabab rayid ah. Hadda macluumaadkiisa inta la urursado isu bedelay in hub ahaan loo adeegsado kadibna go'aan la qaato lagu bartilmaameedsado qofka wata taleefankaasi. waa gartay marka xogta laga ururiyo dadka rayidka ah sidee ayay isugu bedeshaa bartilmaameedyo military? warbixino badan ayaa tilmaamaya in Israa'iil ay isticmaalayso shirkado la kala yiraahdo Lavender iyo Where is Daddy, kuwaas oo ku salaysan in macluumaadka ay u gudbiyaan caalamiga samayska ama artificial intelligence kadibna loo isticmaalo bartilmaameedyo laga howlgalo oo marinka Gaza gudihiisa. Inkastoo magacyada labadaas shirkadood ay tilmaamayaan in loogu talagalay adeeg rayid ah, haddana si toos ah iyo si qumaati ah ayaa kumanyaal Falastiiniyiin lagu dabagalaa, macluumaadkooda la lafaguraa kadibna lagu taageeraa Israa'iil inay bartilmaameedsato. Warriors Daddy shirkadda la yiraahdo ayaa dabagal ku samaysa dadka. Markay guryahooda gaaraana waa la sugayaa ilaa inta guryahooda ay ka gaarayaan iyo goobta shaqada. Kadibna macluumaadka ayaa ciidamada Israa'iil loo dirayaa oo isla markiiba beegsanaya una ogolaanaya in ay daarto uu qofkaasi galay meesha ay ku taallo iyo in la beegsado iyadoo aan ka fekeraynin dad kale oo rayid ah oo aanan dambiye gelin inay meeshaas joogaan. Lavender nidaamka la yiraahdo ayaa asna waxa uu lafagurayaa macluumaad aad u fara badan, wuxuuna qiyaasayaa dadka Falastiiniyiinta ah dabagalka lagu sameynaya ka tirsan ururka Xamaas iyo ururada kale. Kadibna natiijada ayuu waxa uu gudbinayaa Israa'iil inay go'aan ka gaarto. Shirkad kale ayaa jirta Palantir la yiraahdo oo uu wax ka soo saaray Alexar Cap in la yiraahdo ayaa lagu warramay inay ka dambeeyaan inay ka shaqeeyaan macluumaad lagu taageerayo ciidamada Israa'iil oo loogu talagalay in lagu sifeeyo meelaha agabka ay yeelaan iyo meelaha dadka mas'uuliyiinta ay ku sugan yihiin. Mas'uuliyiinta sarsare ayaa macluumaadka loo gudbinaya. Cap ayaa waxa uu sheegay Israa'iil in ay dalbatay teknolojiyad casri ah oo aad u kordhinaysa baaritaankooda iyo sugidooda. Kadib wixii ka dambeeyay October 2023 shirkadaha Israa'iil agabka siiya iyo wax soo saarkooda hore macluumaadka saan oo kale uma ay siin jirin. January 2024 Palantir ayaa saxiixday iskaashi istiraatiijiyadeed oo heshiis ah oo la gashay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog iyo wasaaradda difaaca saraakiil ka tirsan. Waxaana hoosta laga xariiqay in ay noqotay macluumaadkaasi in ay shirkadaasi ay haysato inay isticmaalaan ciidamada qalabka sida oo teknolojiyadooda lagu taageero dadaalka dagaal ay Israa'iil wadda iyo howlgaladeeda. waa gartay marka maxay tahay shirkadda Mareykanka laga leeyahay ee qaybta ka ah howlahan? markay timaado dabagalka Israa'iil waxay isticmaalaysaa diyaarado drones oo shirkad Mareykan ay soo saarto Easy Area la yiraahdo. Intaa waxaa dheer shirkadaasi sawirada ay qaadayso ayaa dadka wejiyadooda aqoonsanaysa. sawirro horey loo hayay oo kombiyuutarada lagu hayay ayay ku akhrinaysaa qofka heybtiisa magaciisa wax walba ay ogaanaysaa oo ay shirkad kale sii diyaarsatay Ebit Systems la yiraahdo. macluumaadkaasi marka la ururiyo oo la xaqiijiyo qofka heybtiisa iyo waxa uu yahay ayaa dabagal lagu sameeyaa dhaqaaqiisa. nidaamkan ayaa waxa uu ogolaanayaa in macluumaad fara badan la urursado si joogtaana kaydka macluumaadka ee la hayo wax laga bedelo oo wax lagu soo daro si loo dardargeliyo macluumaadka ciidamada militariga Israa'iil ay ku dabagelayaan dadka si uu casri u ahaado. kadibna ay maareeyaan inay kala hufaan si ay howlgal military ugu fuliyaan oo ay dadkii ay raadinayaan si sahlan u laayaan. waa gartay marka dhinaca kale khaladaadka algoritmka ama isticmaalka systemkan ma noqon karaa cudurdaar sharci ah oo qiil looga dhigo dhimashada dadka rayidka ah? caqliga samayska ah in howlo military loo isticmaalo waxaa ka dhalanaya su'aalo akhlaaqi ah kuwo qaanuuni ah.
waxaana ay u ogolaanaysaa Israa'iil inay cudurdaar u yeesho dhimashada dadka rayidka ah inay ku timid natiijo ah khad uu sameeyey kombiyuutarka oo ayaga aan shaqo ku lahayn taasoo ka caawin karta inay ka baaqsadaan in mas-uuliyad qaanuuni ah la saaro ama dembiyadii dagaal ay gashay in lagu eedeeyo nidaamka teknolojiyada casriga ah ma ku xadidna oo keliya isticmaalidda kaabayaasha AI sidoo kale waxaa lagu salaynayaa kombiyuutarada laftirkooda in loo ogolaaday in macluumaadyo laga urursado la kaydsado la lafaguro mashruuc loo bixiyey NIPAS oo ay leedahay Google iyo Amazon ay wada saxiixeen ayaa xukuumadda Israa'iil bishii Abriil 2021 waxaa ku baxay qarash gaaraya 1.2 milyan oo 1 bilyan iyo 200 milyan oo dollar oo mid walba oo mashaariic gaar ah ka shaqeynayo oo kaabayaal u sameynayo ciidamada Israa'iil iyo militariga Israa'iil iyo hay'adahooda kala duwan mashruucaasi ayaa waxaa qayb ka ah in la abuuro kombiyuutar xarun weyn oo macluumaadka lagu ururiyo lasoo ururiyo kaasoo macluumaadkaasi laga ururinayo internetka isla markaasna Israa'iil militarigeeda lagu caawinayo caqliga samayskaana uu kala kufayo iyo mishino kale oo wax la baray si loogu ogolaado Israa'iil macluumaadka ay ururisay inay si dhaqso ah u dabagasho ogana faa'iideysato kaabayaashaasi dijitaalka ah si ay howlo militari uga fushisto waa hagaaga marka maxaa ka mid ah xogta saxaafadda loo dusiyey macluumaad saxaafadda loo dusiyey ayaa tilmaamaya in Google kombiyuutarkan weyn ay samaysay Israa'iil siinaya in ay wejiga dadka aqoonsato isla markaasna sawirro badan ay dhaqsadiiba ku soo saarto qofka loo baahan yahay marka sawirkiisa ay soo gudbisay diyaaradda droonka iyo in dadka dabagal lagu sameeyo xaaladiisa lala socdo dhaqankiisa lala socdo wejigiisa la aqoonsado sawirrada saas oo kale iyo xataa codkiisa la ururiyo automail wax la yiraahdo ayaa iyadana AI loo isticmaalaya macaaliga samayska ah si dhaqso loogu lafaguro macluumaadkan faraha badan leh isku mar oo ay ka tirsan yihiin dadka rikoorkooda la hayo ama diiwaankooda la hayo ee maxaabiista ahaan jiray ee Falastiiniyiinta iyo qorshayaal lagu weerarayo iyo dabagal lagu sameynayo warbixinada qaar iyo in la dhiso xaalado lagu tilmaamayo isku dibrid weyn oo bartilmaameedsi ah u dhexmara hay'adaha kala duwan ee dowladda Israa'iil si loo bartilmaameedsado shakhsiga la mudan yahay ama la maagan yahay doorkaasi ayaa loo adeegsanaya teknolojiyada casriga kuma xadeysna oo kaliya macluumaad la soo urursaday sidoo kale waxaa la urursanaya sidoo kale waxyaabaha dadka ay qoraan waxa dabagal lagu sameynaya wax laaliyo wixii la qoro oo Israa'iil looga soo horjeedo waxa la fagurayaa idaacadaha waxa ka baxa wadooyinka kaamirooyin ku yaala dariiqyada iyo diyaaradaha droniska ayaa sidoo kale loo ogolaanaya in macluumaad dhaba dadka iyo goobaha ay ka soo ururiyaan si toosan meeshii la rabo ay ciidanka Israa'iil uga nabadgalaan uga howlgalaan waxaana muuqata in waxa hawshaas u fududeynaya bini aadam waxaas oo dhan qaban kara waxa qabanaya caqliga samayska iyo teknolojiyada casriga ee AI waa hagaaga ugu dambeyntii doorkee ayay shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadu ku leeyihiin nidaamyadan digitalka ah aqoontan casriga iyo teknolojiyada ayaa daboolka qaadaysa Israa'iil in aynan u isticmaalin oo kaliya inay macluumaad ku urursato ay u isticmaalayso inay kaydsato isla markaasna ay isku halaynayso caqliga samayska inuu kala hufo oo kala haadiyo kadib macluumaadkaasi ay ku howlgasho kuna isticmaasho natiijada si toosan howlgalo militari iyo qorsheyn iyo go'aan qaadasho ay samayso ilaa iyo Oktoobar 2023 Israa'iil weerarada ay qaaday kulligood waxa loo adeegsanaya caqliga samayska waxaana loo bedelay macluumaad fara badan in lagu dhabar gooyo ama lagu istirsafeeyo ama lagu xasuuqo dad badan oo Falastiiniyiin ayada oo saameysay in ka badan 2 milyan iyo 400 kun oo Falastiiniyiin Mareykanka Gaza ku nool intii lagu jiray xilligaasi Israa'iil in ka badan 80% dadka Mareykanka Gaza ku nool waxay u isticmaalaysay qaraxyo gaarayay 223 kun culayskooda natiijadana waxay noqotay in ay burbur weyn oo 90% ka geysata kaabayaashii iyo guryihii Mareykanka Gaza ku yaalay Israa'iil waxa ay ka fulisay Mareykanka Gaza ma ahayn kaliya wax bini'aadan samayn karo mashiin ayaa qayb ka ah iyo caqliga samaysta ah
وهجاج وانا arki doonaa arrimahaasi wixii kusoo kordha aad baa u mahadsantahay maxamed daawadayaal idinkana aad baa ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaa inaga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN online TV ama hore aadan ugu xirnayn kusoo biir baraheena kala duwan internetka aan ku leenahay inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xiga insha Allah nabadgelyo